dowladda Iran ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday in ay gacanta ku dhigtay tiradii basaasin ahayd ee ugu badneyd abid oo laga qabtay gudaha wadanka Iran in ka badan 700 oo basaas oo ka howlgelayay gudaha Iran ayaa xabsiga loo taxaabay kuwaas oo ay dabagal ku sameeyeen sirdoonka Iran isla markaasna laga soo qabtay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan isla gudaha wadankaasi Iran basaasintan tiradoodu aadka u badan tahay oo gabi ahaanba u shaqeynayay Israa'iil ayaa ka howlgelayay gudaha wadankaasi Iran iyagoo halkaasi ka fulinayay howlgallo qorshaysan oo lagu beegsanayay saraakiisha ugu sarreysa dowladda Iran iyo sidoo kale dadka aqoonta u leh dhinaca hubka nukleerka iyo sidoo kale gantaalada ridada dheer ee Iran ay samaysato dhammaanba basaasintan laga qabtay gudaha Iran ayaa u shaqeynayay hay'adda sirdoonka u qaabilsan Israa'iil ee magaceeda loo soo gaabiyo Mossad taasoo gudaha Iran uga howlgalaysay si aan inaba caadi ahayn isla markaasina ku ugaarsaneysay saraakiisha ugu sarreysa wadankan Iran dowladda Iran oo ka hadlaysay basaasintan sida ay oran doonto ayaa sheegtay in dhammaantood la marin doono sharciga taasoo macnaheedu uu yahay in la layn doono dowladda Iran hore waxay u qabatay qaar ka mid ah basaasinta Israa'iil ee gudaha Iran ka howlgelayay kuwaas oo ay dishay isla markiiba iyadoo qaar koodna ay wali xabsiyada ku jiraan dowladda Iran arxan uma gali doonto Israa'iiliyiintan basaasinta ah oo waxay u dili doontaa sida ugu arxanka daran ee qof bini aadam loo dilo iyadoo kaga argoosanaysa saraakiisheedii ay laayeen sirdoonka Israa'iil si weyn buu uga howlgalaa gudaha Iran sababta ugu weynina waa kala qaybsanaanta bulshooyinka ku dhaqan gudaha wadankan Iran oo aan isku caloolsamayn kuwaasi oo kala tabanaya waxyaabo la xidhiidha saameyn qaybsiga khayraadka wadanka Iran oo aan loo sinayn taasina waxa ay keentay in bulshooyinka kala qaybsan ay qaarkood cadawga u soo raacaan kuwa kale iyadoo ay ku soo dhex gabanayaan sirdoonka Israa'iil oo ka howlgalaya gudaha Iran iyagoo iska dhigaya inay yihiin shacab Iiraaniyiin bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan gudaha Iran ayaa ah kuwa ugu dulman isla markaasina khayraadka wadanku aanu waxba kaga soo noqonin iyadoo haddana macdanta iyo shidaalka ugu badan laga soo saaro dhulkooda haddana waxba kama helaan oo dhaqaalaha ka soo baxa waxa kaliya ee qaybsada qoomiyadda ugu badan wadanka Iran ee Farisiyiinta kuwaasi oo khayraadka ugu badan ee ka soo baxa gudaha Iran iyagu si gaar ah u isticmaala isla markaasina deegaanadooda ku horumariya kala qaybsanaanta bulshooyinka Iran ku dhaqani waxa ay keentay in aan gudaha Iran aanu ahayn mid isku tuuban kuwaasi oo cadawgu si walba ugu soo dhex gaban karo kuwaasi oo dawladdu ay dhibaato weyn ku qabto sidii ay cadawga uga dhex sifayn lahayd gudaha Iran maadaama oo bulshooyinkii ku dhaqnaa gudaha Iran aanay ahayn qaar iyagu isku tuuban isla markaasina cadawga iska wada dhex saari kara Iran waxa ku nool bulshooyin in badan deganaa dhulkaasi isla markaasina xataa uga soo horeeyay kuwa haatan xukunka haya haddana aan khayraadka wadanka waxba ka arkin kuwaasi oo degan goobaha laga soo saaro khayraadka ugu badan ee wadankan Iran uu dawladda u dhoofiyo dhaqaalaha ugu badanna ka helo haddana dulmiga ugu weyn ayaa ah in dadkii dhulkooda laga soo saaray khayraadku aanay waxba ka helin dubna aan waxba loogu soo celin haddii xataa ay tahay wax yar oo ka mid ah faa'iidadii ay ka helayeen khayraadka dhulkooda laga soo saaray taasina waxa ay suurto gelisay in Israa'iil ay adeegsato basaasiin badan oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Iran hase ahaatee u shaqeynaya sirdoonka Israa'iil ee Mossad kana fulinaya danaha Israa'iil gudaha Iran taasina waxa suurto geliyay kala qaybsanaanta iyo kala fogaanta shacabka reer Iran ee danaha saameyn qaybsiga dhaqaalaha wadanku kala fogeeyay dowladda Iran ayaa si weyn u baacsanaysa basaasinta ku dhex faafay gudaha Iran ee muddooyinka sanadaha ah ku dhex tababaranayay isla markaasina ka samaysanayay hooyga iyo sidoo kale meelaha ay qalabka dhigtaan dowladda Iran ayaa sidoo kale saaka waxa ay dil ku fulisay saddex ka mid ah basaasinta laga qabtay sirdoonka Israa'iil ee gudaha Iran ka howlgelayay kuwaasi oo la qabtay maalmihii la soo dhaafay ee dagaaladu ay socdeen isla markaasina lagu qabtay iyagoo oo sida qalab la doonayay in lagu kharajiyo qaar ka mid ah saraakiisha Iran ugu sarreeya saraakiishan saaka la dilay oo u shaqeynayay sirdoonka Israa'iil ma aha kuwii ugu horeeyay ee gudaha Iran lagu dilo hase ahaatee waxay muujinaysaa sida ay Iran u baacsanayso basaasinta Israa'iiliyiinta ah ee ka howlgelaya gudaha Iran kuwaasi oo xataa qaar ka mid ah ay u dhasheen Iran lafteeda hase ahaatee ay u shaqeynayaan Israa'iil
tanina ma istaagi doonta baa la yidhi ilaa iyo inta sirdoonka Israa'iil laga sifaynayo sirdoonka Israa'iil ee tirabeelka ku noqday gudaha Iiraan iyagoo ku dhex gabanaya shacabka reer Iiraan hase ahaatee Iiraan waxa ay muujinaysaa dadaal aad u sareeya iyadoo oo imaka uu ku baraarugtay in sirdoonka ugu badan ee Israa'iilba uu ku sugan yahay gudaha Iiraan dagaaladii intan oo dhan soconayay si weyn bay uga guuleysatay Mareykanka iyo Israa'iil hase ahaatee balbasaasiintanna waa la eegi doonaa siday uga sifayso gudaha Iiraan